kulanti wacan oo xiise la dhammaantiinba akhyaarta hawada naga daawanaysa ay kusoo dhawaada telefishinka oo maalin walba waqtigan oo kale aad nooga barateen hawada dhammaantiinba akhyaaray galab caweysin subax wanaagsan waqti wala aad barnaamijkan aad nasiib u hesho intiina kale xawla caalamka naga daawanaysa aaladaha internetka sidoo kale telefishinka on cable tv waxaanu idin leenahay idinkuna kusoo dhawaada barnaamijyadeena xiisaha leh daawadayaal barnaamijkeenan ayaa ka koobnaan doona dhinacyo aada u fara badan oo halkan maanta aan waraysi kaga qaadayo qabanqaabiyayaasha xafladda 18 May ee ka dhacaysa wadankan Sweden halkaasoo bisha 20keeda waa jimcaha soo socda ay la filayo inay xafladihii 18 May ay si weyn uga qabsoomaan dalkan Sweden khaasatan caasimadda oo aad dadku isugu diyaarinayaan in ay xafladda 18 May ay qabsoonto inta aan gelin xafladda 18 May ayaa barnaamijkeena hordhaca ahaa waxyaabihii jaraa'idada ay qoreen ayaan halkan idinku haynaa oo qaybo kamid aan maanta kusoo qaadanayno wadanka Denmark haddaba warbixin lagu qoray jaraa'idada weyn caanka Dagens Nyheter ayaa lagu soo bandhigay in dowladda Daanishku ay ku tala jirto in dib loo soo celiyo jeegarinta xuduudaha qof kasta oo galaya wadanka Denmark oo ka taga wadanka Sweden sidoo kale wadamada Jarmalka ee galaya wadanka Denmark haday tahay xagga badda iyo haday tahay xagga cirka haday tahay xagga dhulka intaba waxa ay Denmark soo celisay in xuduudaheedii dib ay u bilowdo baasaboorka in qofku sito arrintan ayaa waxay ka cadaysisay wadamada Yurub oo ku tilmaamay mid sharcigaas uu jabinayo heshiiskii ay wada galeen wadamada Yurub ee ahaa in la isu socon karo iyadoo aan loo baahnayn in qofku uu Yurub dhexdiisa wadamadan markuu marayo aan wax baasaboor sidan arrintan ayaa dowladda Denmark oo iyo baarlamaankeedu ay ku sheegeen oo ay yiraahdeen waxa nagu batay waxa la yiraahdo criminalka iyo dambiyada dadka dambiilayaasha ah laakiin waxa ay dadka siyaasadda u dhown daloola arrimaha immigrationadu ay sheegeen inay ujeedadu tahay qaxoontiga faraha badan ee kasoo qulqulaya wadamada in Africa in ay soo maraan ama ay soo galaan qaar badan wadamada Denmark runtiina waa arrin runtii in saameyn weyn ku yeelan doonta dad badan oo Soomaaliya oo u kala goosho wadamada Yurub taasoo macnaheedu yahay qofku marka uu Denmark ba haduu safar ku dhex marayo in uu maadaama samarkina hadda aynu ku jirno uu si diyaarsado baasaboorkiisa warbixintaas ayaynu runtii kusoo gabagabaynaynaa qaybta caafimaadka ayaa intaana ka bixin ayaa waxaa in cilmi baarayaal ay sheegeen in haweenku hadday cabaan 5 koob oo kafay maalintii ay keeni karto inuu khatarta kansarka naasaha ku dhaca uu ka yaraan karo arrintaas ayaa lagu soo bandhigay jirada weyn caanka ee Metro loo yaqaan oo la sheegay inuu kafaygu uu ka hortago cabitaankiisu kansarka naasaha haweenka ku dhaca dollarka Mareykanka ayaa isaguna runtii adkaaday xoogaa 600 iyo waxa lagu kala saroonay 50 mar ay dadka dhaqaaliyahanku arrinta ka faaloodeen ay waxay sheegeen in aanu dollarku qaali garoobi doonin iyadoo bishii Abriil ayna dhaaftay sanadkan uu gaaray meeshii ugu hooseysay oo lagu kala sarrifanay 6 crown meelaha qaarna 5 crown iyo 50 iyo 99 ore si kastaba aatee barnaamijkeennii jaraa'idku waxyaabaha qoraan ayaynu qaybta kaga baxaynaa waxaan nimka u galeynaa bal qaybta kale ee barnaamijkeena sidii horta daawadeel aan idinka ballan qaadnay waatii 2 wiig ka hor aan idinka ballan qaadnay in barnaamijkeena maanta oo kale aan idin niri waxaa lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha socialka iyo caruurta la qaato haddaba barnaamijkaas ayaa wiiga dambe iyo 2 wiig dib inooga dhacay iyadoo sababtuna ay tahay iyadoo xafladaha 18 May ay imika nagu soo garaaceen miiska amaba albaabka taasoo aan rajaynayna bal inay dadweynuhuna ay bal xafladaas iyo sida u dhacaysa intaba ayduun halkan maanta mudanayaasha iyo marwooyinka intaba aan ku waraysto intiina kale xawla caalamka naga daawata aalada YouTube-ka barnaamijkeena hadiyo goor comment ayaad ka samayn kartaa adiga oo gelaya qaybta comment-ka amaba faallada halkaas oo aad wixii fariin ah telefishinka aad noogu soo diri doonto sidii daawadayaal aan idin sheegay barnaamijkeenan maanta ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa sida 18 May iyo xafladeena halkan lagu falanqeeyo waxaana marti halkan iigu ah in mudanayaasha qabanqaabada xafladaha 18 May Maxamuud Abukoor iyo Nasriin oo iyaduna ka socota in xafladda qaybta habeenkii dhacaysa si kastaba aatee waxaan leeyahay kusoo dhawaada TV-ga Maxamuud haddaan ku hormarno xafladii 18 May ayaa la qabanqaabinayaa qabanqaabada imise horta xafladood baa magaalada ka dhacaya si dadku kala fahmaan cabdi aad baad u mahadsan tahay aad baad iga TV-gaagii wariyaasha aad ugu mahadsan tihiin runtii waxaana ka mid tihiin qayb xooga Somaliland xagga wararka iyo xagga isgaarsiinta intaba intaas oo aan teeray hordhaca marka labaad waxa weeyaan magaaladan aan joogno waa magaalada Stockholm waa caasimadda dalka Sweden
somaliland dad badan baa ku nool marka waxaanu anagu qabnaa inay horta meel walo magaalo walo iyo magaalo kastaba in laga dhigi karo ee Dhinmay waa waajib oo wax muhiim ah laakiin magaaladan aynu joogno ee Stockholm intaanu anagu aanu cilaaminay ama aanu shiinay ama aanu iskaraynay waxa weeyaan xafladda ee Dhinmay ayaa ka dhacaysa mid galabtii iyo mid habeenkii waa isla xafladun laakiin waa laba qaybood marka qayb waxay ka dhacaysaa habeenkii qaybna waa maalintii waxaa noogu talagalay dumarka iyo caruurta sax oo waxay ka dhacaysaa xaafadda la yiraahdo Hospitalref xaafadda shista qaybta Hospitalref waxay ka bilaabanaysaa 3 galabnimo waxaana noogu talagalay inay soo afjaranto soo xiranto 9 ilaa 8 marka fiidnimo meelaha marka haddeen bal qaybta labaad aan ka wareysta Nasriin oo kamid ah dadka in ku runtii ku soo dhaw telefishinka marka hore aad baad mahadsantahay in xafladda in habeenkii dhacaysa waa xaflad iyadana runtii in dhalinyarada iyo waayeelka iyo cid walba isugu iman doonto xafladda ay Dhinmay unba way sii soconaysaa marka haddii xafladuna waxay ka dhici doontaa habeenkii hoteelka caanka ah loo yaqaano Fadesta laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hoteelka biyaha aroosyada ugu caansan baa ka dhacaya magaalada Fadesta ku yaala bal qabanqaabada xafladii xagay maraysaa imika xafladii Fadesta ka dhacaysay walaalaha hadda meel fiican ba insha Allah noo maraysaa maadaama ay tahay Somaliland sanadkii 20aad waxaan rajaynaynaa in xaflad aad u balaaran noqoto insha Allah qabanqaabo fiicanana labada qaybood baan ka soo galnay xafladani gelinka hore ciyaalka iyo haweenka iyo dadka waaweyn loogu talagalay marka laga yimaado tan waxay bilaabanaysaa 7:00 xagaas in xafladu ka sii socon doontaa ilaa 3 habeenimo marka in xafladan runtii waxa weyn wax xaflad si weyn u soo agaasinteen goor dhaweedna waxaa noo suurtoobi weyday fanaaniin fara badan oo ku sugan daafaha caalamka oo imaanaya wiiga soo socda marka xafladu bal noocay u dhacayso wax yar oo kooban ma naga siin kartaa walaala xafladan waxay u dhacaysaa horta fanaaniin badan way noo imanaysaa hidiya dhaqankiiba kamid ah waxa kale imanaya يعني wadamo kale oo sideenan oo kala dhibaatadan soo maray ayaana la qaybsan doona oo ciyaarahoodii iyo soo bandhig ay ka dhici doonta marka fanaaniinta haddaan ku noqdo fanaaniinta aad ay Somaliland u xiiseyso sida himilo kale Cabdi Fataax oo Ingiriiska nooga imanaya Lafoole Fadxiye Fiiska iyo maxaan ku raahdaa fanaaniinteena reer Sweden marka fanaaniin badan baa insha Allah imanaya markaad hadaba eegto runtii waa xaflad si weyn aad u soo agaasinteen waa xaflad runtii dhaqaale badan baa ku baxaya marka sidee baad ugu tala gasheen inay dadku yacni lacag bixinayaan yacni bal iyadana taan walaalo waxa weeyaan kolley tigidhadana waxa weeyaan cashadiina way ku jirtaa iyo sharaabkii waxaanan jecelnahay kolley tigidhada waxaa laga helayaa dahabshiil labada dahabshiilba dhaqaalihiina kolley xagga iyo wixii dhaqaale geysanayo kale reer Somaliland waa gacmahu way u furan tahay laakiin hadda dhaqaalihii dhinacaas iyo jaaliyada Somaliland iyo kolley meelo badan baan insha Allah ka rajaynayna caawimaad intii kalena kolley hadda way gashay oo alxamdulillah marka habeenka magaaladu way ruxmaysaa fanaaniinta imanaya markaad ka reebto qolada hadda magacawday fanaaniintu waa ilaa 10 maqlay sida warku igu soo gaaray oo ka badan yihiin bal arinta maadaama dadku ay fankana aad u xiisaynayaan kolley fanaaniin badan way imanaysaa oo fanaaniin badan oo waxa jirta malaha meesha ku sharaxnay kaararka laakiin imanayo heesi doona marka way jirtaa fanaaniin badan oo ka soo qayb gali doona waxyaalo badan oo reer Somaliland surprise oo maadaama ay tahay 20 jirsatay oo sanad guurihiina maxaan ku raadaan doorashadiina si fiican ugu dhacday kale waxyaalo badan oo surprise oo ahaan doona oo sanadkan ka duwan doonana way heli doonaa reer Somaliland waxaan rajaynaynaa inay sanad kasta farxad iyo sidan oo kale ku waaraan maxamed halka maxaad ku daraysaa xafladda ay dhalinyarada iyo kolleyba xafladda qaybteeda ugu weyn habeenkii bay dhacaysaa hoteelka biyahana ka dhacaysaa maxaad ku daraysaa halkan runtii waxaan ku darayaa waxaan leeyahay dadka reer Stockholm ee reer Somaliland
waxay u tahay waa xafladan waxay u tahay waxay ku reebaysaa runtii xusuus gaar ah because waxa weeye waa xafladii ugu horeysay ee maalintiina loo dhigo habeenkiina loo dhigo marka cabdikariin laga hadlaya xafladda habeennimada dhalinyarada oo keliya maaha cid walba anaguba dhalinyaro mihii waanan imanaya waan joogaa laakiin waxa weeye nin waliba inuu ku ciido wadankiisii laakiin waxa aad iyo aad u mudan sharaf iyo xasuus mudan dhalinyarada runtii hawshaas ka saartay Nasriin iyo gruubkeeda xafladuna waxa weeyaan tigidhka waxa lagu gelayaa tigidhku waxa weeyaan marka la tigidh baa la iibsanayaa waa qofku waa inuu ka fakaro sharaabka iyo cuntada cunaya oo kaliya intay tahay absolutely ma dadku xafladaha iyo muusiga yani 250 karoona waxay tahay male marka qofkii cashadiisii iyo maxaan ku dhahay sharaabkii iyo muusigii habeenkii uu ku raaxaysanayay iyo taariikhda Soomaaliland inta uu ka faa'iido aad iyo aad baa runtii looga faa'iideeyaa maaha muusiga qura marka hore khudbada ka horeyn doono runtii waa Soomaaliland baa laga hadli doonaa marka dambena xafladii baa saa loogu kala bixi doonaa nidaamkeedii qaybaheedii daba soo soconayaan marka runtii waa xaflad aad loo soo agaasimay waxaanan fili doonaa insha Allah inay ka qurux badnaan doonto xafladii hore Nasriin waxaa jirta in xafladaha imanka ee dhimay loogu dabaaldego runtii kama soo qayb galaan oo kaliya in dadka Somalilanderka ah xataa Soomaali weyn oo dhan ba xafladaha isugu yimaada marka xafladu ma dad gaar ah u sameynaysan mise waa xaflad open u ah dadka asxaabtooda soo kaxaysan karaan bal arinta iyadan ku yar halka bal wax yar nooga sharax may saan ku sheegay kulay dad badan baa nagala soo qayb gali kara oo reer Somaliland ahayn waa aniga kule ciyaaro badan baa la soo bandhigayaa oo de wadamo naga baxsan say marka ku noqonina Soomaalidan isku dhiigahayn in iyaguna ayna ka soo qayb galin marka gacmihiina iyo wadnaheena way u furan tahay Soomaalida kale iyo reer Somaliland ba maxamed halka ana yar ku daro Nasriin soo ambay u dhigtay waxa weeyaan marka xafladda calankeena aan ka hadlayno waxa bay noo sharafa in cid waliba ka soo qayb gasho oo inagu la ciidaan oo inala qayb qaataan waayo farxad baynu ku jirnaa farxadda in cid waliba inala qayb qaato oo ay arkaan sidaynu inaguna u faraxsanahay ama sidaynu yani u agaasimanahay ama sidaynu isugu duubanahay aynu farxadeena iyo يعني مالمهنا على national day إنه كل عين نوح حسينه وفرحة رنتي مركا وحنا نقولها هتي رنتي أي نهيل كريه نعد والبا أما تشيران كانوا قلت دولة تشيران كلنا أما كون كلنا نقولها يوم كمان قلت نعد والبا نقول سوق قيم كشوا إنه هبليه وأنا هبليه تذكر نقول سوق قيم كليه رنتي وإنه هبليه نيا Nasriin markaad eegto hoteelkaad ku dhigaysaan hoteelka biyuhu waa hotel caan ah qof walo Stockholm degani ama aroos buu ku dhigtay ama walaashiiba aroos ku dhigatay ama waa hotel aad iyo aad caan ah oo dadku dhammaan ay soo helayaan marka security-ku sidee uu yahay walaalo security-ku aad baa looga soo shaqeeyay muhiimadeena ugu weyn waxay ahayd nabadgelyada iyo sida habka loo sameeyo amba ilaalinta amba dadka soo dhaweynta marka dad badan baa waxay u qaabilsan yihiin habka loo soo dhaweynayo dadka meesha imanaya qaarna waxay u qaabilsan yihiin security marka mana ahan security-da sida hadii Soomaali oo kale la geliyo kala de Soomaalidina iska taqaanayo dad baa dad yaqaan laakiin security-kan waxa weeyaan security caadi ah oo professional oo wax soo dhigto ku shaqeeya oo wadamo kale ka yimid inteen lag bad ku qaadatay xaflad ma sahlana in la qaban qaabiyo inteen lag bad hadda wadeen arintan kulli ilaa muddo la wada qaban qaabadeeda waa iska fahmi kartaa xaflad sidan u weyno de xafladaha ugu waaweyn ee Suudaan ka dhacay ay tahay qaban qaabadeeda ilaa muddo la wada hadiyo goor dadku waxay isweydiiyaan hadii kharashka oo bato ka soo baxa meesha miya idinku jira yani tabarucaad dhiibaysaan بس وحنا بعد وقت لقى شيء دتكو هنا إسكع حفلة ديستان وأنا حفلة نقد ميت تبرعات لقول رنيو ما إن شاء الله سيدنا نجو رجيني نوحي تهاي ودن كيني إن محن كره هذا دتكي وحباهم سيدي أجانتا إيه محن كره هذا دتك محن كره هذا إن عريامين تفخون سندرانته ما دام dad badan oo nala qaban qaabinaya badankeena aan ka shaqeyna dhinaca caafimaadka sida Stockholm syndrome-ga ah iyo dhinaca ogoomaha marka waxaan aad u xil saaranahay inaan labada qaybood labada groupba aan ku saacidno wixii ka soo baxa marka 250 qofku ka badin kara qofkii 500 tabarucaad kala baxay sadaqa ka dhiganaya waa ku jira
qofkii koley wax bixinaya maxaan ku raahdaa amba caawimaad bixinaya waxaan jeclaan lahayn inay direct ugu dhiibaan amba toos ugu dhiibaan dahabshiil. absolutely. ugu dambeyntii maxaad maxamed kusoo gabagabeynaysaa qaybtan xafladda habeenkii dhacaysay galabtiiba intaba? runtii ta galabtii runtii iyadoo ku noqoshada ma malaho waxa weeye waxaan ugu talagalnay had iyo goor xaflado badan baa la dhigay habeennimadii iminka sanadihii ugu dambeeyay xaflado badan baa habeennimadii la dhigi jiray marka waxaan ugu talagalnay caruurtiina inay iyaguna markooda ay maalintooda ay helaan saacadooda ay helaan ku fiideen halka ku cararaan halka ku farxaan xafladda qaybta koowaad marka xafladda qaybta koowaad marka runtii xafladdu way isku wadaa way isku xidhan tahay laakiin waxa weeyaan waxay tan furaysaa xafladanu waxay furaysaa in aynu samayn doono xaflado dambe oo aynu qaban doono markaynu waa aragnimada hadda ka helo aanu tabarucaad runtii lagu samayn doono sida aanu hadda nasriin iyo aanu ka wada hadalay dhalinyaradii soo abaabushay xafladan marka waa wax inoo furmo albaab inoo furan oo imika la bilaabay oo socon doono weeyaan insha allah waana ku mahadsan yihiin. nasriin maxaad kusoo gabagabeynaysaa xafladii waa iclaaminay waa maalinta jimcaha dhacaysaa 20 bisha waana fadeesta ka dhacaysaa hodheelka biyaha marka qiimuhu waa wadadku waxay ka iibsan karaan tigidhadii hadda dahabshiil bay yaalaan. ugu dambeyntii fanaaniin culus baa imanaysaa ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabeynaysaa qaybtan xafladda? wallaahi waxaan hadda kusoo gabagabeynaya horta Somaliland waxaan jeclay inay waarto ilaahna waxaan uga jeednaynaa sanadba sanadka ka dambeeya inay si wanaagsanaato. reer Somaliland waxaan leeyahay xaflad fiican kuna soo dhawaada 20 May 7 barka oo maalin Jimco ah insha Allah. aad baa mahadsantihiin daawadayaal halkaa waxaa noogu dhamaaday barnaamijkeena qaybtiisii koowaad oo kaga hadlaynay dabaaldega xuska 18 May oo 20 bisha ka dhici doona magaalada Stockholm. xafladan oo runtii laba xafladood oo isdaba yaal oo isku mid ah oo midna galabtii dhacayso oo ay ka dhacayso Hospitalef ta kalena ay ka dhacayso hodheelka biyaha ee caanka ah runtii ay Soomaalidu aadka u taqaaneen lagu yani xafladaha lagu dhigo aroosyada oo si weyn loo soo habeeyay. marka ha mogaanina hana ka maqnaanina waxaananu idin leenahay barnaamijka qaybihiisa kale aynu gelaynaa sida iyo daawasho wacan. daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa xafladeenii oo aan runtii rajaynayo xafladdu waa xaflad aad u ballaaran oo aan bal nidaamka ay u dhacayso ayaa aan ku gabagabeynaynaa qaybtan hore xafladda. waxaana jeclay bal timetable-ka xafladdu sidee buu egyahay Nasriin? walaal waxay bilaabanaysaa xafladdu ina furnaashiisa la furayo 7 fiidnimo. xilliga cashadana waxa weeyaan waxay bilaabanaysaa 7 iyo barka. waxayna qof serving sida yani cuntada ugu dambeysana waa 9 iyo barka la qaybinaya. marka dadka reer Somaliland waxaan ka rajaynaynaa inay waqtiga ilaaliyaan. marka waa timetable-ku waa tabta isu dhishku dhacaya inaan daqiiqadna lagu dareyn daqiiqadna laga soo dibdhacay marka taas dadka kula dardaaranaysa. dardaarankeena weyn waxa weeyaan tigidhadiina waxaan rabay tigidhadii hadda way soo dhamaanayaan. dadka jecel inay xafladda ka soo qayb galaan inay si dhaqso ah u raadsadaan sayna uga dhamaanin. tigidhana lagama iibinayo albaabka kusoo talagalina hadda waa inay wada iibsadaan because tigidho laga iibinaya albaabka ma jirto. taasna waxaan u sameynay si security-ga uu si fiican u adkaado ina problem amba dhibaato meesha ka imanin. mana la ogolaa wax darooga iyo khamri oo ka mamnuuc? wax darooga iyo khamri lama ogola leana problem u basi kordhinaysa. aad baad mahadsan tahay Nasriin. daawadayaal halkaa bal aan kaga gudubna qaybtii koowaad ee xafladda waxaan u gudbaynaa iminka barnaamijkeena kale oo ay Sakariye iyo Maxamed Abkood martiin ugu yihiin oo laga hadlayo xafladda 18 May sida ay daawasho wacan.
kulanti wacan oo xiise le dhammaantiinba akhyaarta hawada naga daawanaysaa kusoo dhawaada telefishinka oo maalin walba waqtigan oo kale aad nooga barateen sidoo kale idinkoo ka daawado telefishinka caalamiga ee Home Cable TV dhammaantiinba akhyaaray aweysin galab subax wanaagsan waqti walba aad barnaamijkan aad nasiib u heshaan barnaamijkeenan oo ka soo baxa wadanka Sweden ayaa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada telefishinka Home Cable ka baxa ee aalada satellite halkaas oo telefishinku uu yahay mid hotbed-ka sidoo kale Tycom ay shacbi weyn oo ay ka daawataan runtiina telefishinka ayaa imika waxa uu si weyn ugu fiday dhammaan daafaha caalamka halkaas oo xafiisyada telefishinkuna ay maalinta ka dambeeya ay si hore u furmayaan waxaana idin leenahay ku xayeysiiso badeecadaada sidoo kale barnaamijyadaada Home Cable TV International anigoo dalmar oo telefishinka idinka soo gudbinaya Scandinavian-ka waqooyiga Europe sida magaalada Stockholm daawadayaal barnaamijkeenan ayaa waxaan ku lafaguraynaa xafladaha 18 May ayaa waxay si weyn uga qabsoomaan dhammaan daafaha caalamka iyo sidoo kale dalka Somaliland xafladda 18 May ayaa waxa ay tahay maalintii dib u soo noqoshada in dalka Somaliland uu ka noqday midowgii Soomaaliya dalka Somaliland ayaa waxa uu sidiisaba uu xornimada ka qaatay 1960kii 26 June wadanka boqortooyada Ingiriiska halkaasoo 4 maalmood ka bacdi 1 July uu dalka Somaliland la midoobay jamhuuriyadda Soomaaliya halkaasoo lagu sameeyay jamhuuriyadda weyneed ee Soomaaliya 1 July markay ahayd sanadku in 60kii muddo ay labada ummadood ay wada noolaayeen dalkuna uu ahaa dal kaliya kadib markii ay afooyin fara badan ay ka dhaceen ayaa shacabka Somaliland waxa ay go'aan ku gaadheen in ay ka noqdaan midowgii Soomaaliya waxaana lagu dhawaaqay 1991 bishii May 18keedii ayaana ahayd maalintii burca lagaga dhawaaqay in ay Somaliland ay tahay dal ka madax bannaan midowgii Soomaaliya Somaliland ayaa waqtigaa waxa ay go'aansatay in beelihii markay isu yimaadeen ay halka ay ku yagleeleen nidaamkii dawliga ahaa iyo iscafinta halkaasoo beelaha Somaliland oo dhamay ay saxeexeen heshiis ah in ay is amaan geliyaan wada noolaadaan iyagoo markaa ku dhawaaqay in ay taageersan yihiin dhammaantood in midowga in ka noqoshada midowga Soomaaliya taariikhdu waxay soo socotaba Somaliland ayaa waxa ay shilbeereed ay ku samaysatay Boorame halkaasoo xukuumadii ugu horeysay lagu soo doortay iyadoo intii ka horeysayna ay jabhadii SNM ee markaa wadanka dagaalka weyn ka gashay ay 2 sanadood ay haysay kabacdi Somaliland shirbeeleedyadii waxaa ka gudubtaba dimuqraadiyad iyo nidaamka xisbiyada ay u gudubtay iyadoo halka madaxweynaha iyo baarlamaanku ay noqdeen kuwa ay shacabku soo doortaan dadka Somalilandarka ayaa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 4 milyan inta u dhaxaysa walow ay doorashooyinkii ugu dambeeyay ay ka qayb galeen in lagu qiyaasay ilaa 1 milyan iyo 600 kun si kastaba xeebta Somaliland ayaa 600 kilomitir lagu qiyaasay waana dhul aad u ballaaran oo ka kooban runtii dhulka oogada deegaanka bad iyo bariba dalku waa leeyahay waxaana runtii maanta aan bal halkan ku qaada dhigaynaa in qarannimada Somaliland sida ay waqtigan xaadirka amarayso iyadoo halkan aanu bal taariikhdii dib loogu noqonay waxaana marti inoogu ah Maxamuud Abukood iyo Sakariya oo ah mudanayaalka degan wadanka Sweden ahna madaxda Somaliland oo jahliyadaha halkan ka dhisan Sakariya iyo ku soo dhawaada Maxamuud waad mahadsantahay dalmar waxaan ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ka mahadnaqaya fursadan qiimaha leh aanu ku hor fadhino adigoo daadiyaha Somaliland TV iyo walaalka Maxamuud oo ah isaguna nin mujaahida waqti badanna u soo galay intii qurbaha joogay isku xidhka iyo taabagelinta ummadda reer Somaliland ahaana gudoomiyihii dalada guud iga horeyn jiray in hadaayo marka dhamaantiin waan salaamay intii halka la joogtaa waxaan kaloo salaan iyo hambalyo u dirayaa bulshada caalamka meel kasta oo ay joogaan oo inaga daawanayaan imaka oo aan doonayo walba inaan fursad kaga faa'iideysto inaan ku salaamo oo ugu hambaliyeeyo 20 guurada ka soo wareegtay maalintii aynu inagu xornimadeeni iyo qarannimadeeni dib ula soo noqonay oo in dad badan isku khaldaan maalintaas inay tahay maalinteena Somaliland la abuuray run ahaantii aan xornimada hore uga qaadanay Ingiriiska sanadkii 1960kii 26 June laakiin tan 18 May ay tahay
de qaran jiray oo la midoobay lixdankii Soomaaliya sida de Sweden iyo Norway ay mid u ahaayeen ula kala noqdeen 1905 Somaliland ay u dabaaldegaysa 20 guuradeedii marka kulley waynu sii la faguri doonaa walaalkay Maxamuud ayaan ku wareejin doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad buu mahadsan yahay Sakariya Xasan Wacis marka hore horta Cabdikariin salaantii iyo mahadnaqiiba horta waxa iga horreeyay Sakariya iga horreeyay Somaliland runtii u noqon mayno waxay Somaliland runtii soo martay marka halkan kaga wada bogan karno maanta waxa farxad inoo wada kulligeenba hadeen nahay dadka Somalilanderka siiba dadka qurbaha jooga siiba si Stockholm jooga Sweden Stockholm jooga inaynu maanta ka qayb qaadano walaaladeen kala ee daafaha caalamka jooga farxadda ay maanta caalamkoodii iyo maalintan taariikhiga ee inoo ah qof waliba halka uu ka geliyo waxa iyadu maragma doontaa runtii yar iyo weyn reer Somaliland rag iyo dumar in aynu maanta nahay dad yani ku faraxsan dawladoodii garab taagan wax kasto oo ay ku cunaan wax kasto oo ku helaan ba ku faraxsan dhulkoodii iyo dalkoodii sidii uu walaalka sheegay Sakariya runtii waxa ahayd maaha dawlad cusub ee nimanka wadan cusub ee Yaglaley maaha wadan cusub waa wadan hore weligiiba u jiray taariikhdii aynu calanka ka qaadanay boqortooyada Ingiriiska sidii uu sheegay walaalka Sakariya waxba inaga kagama bixin hadal baynu ku helay calanka laakiin ay diin may maalintan aynu la soo noqonay dhiig baynu naga mudan tahay dhiig baynu calankeeni dhiig baynu ku helay calanka dhiigga lagu helay calanka hadalka lagu helaana waa kala qiimo badan yihiin warka qof kasta oo Somalilander wuxuu og yahay dhiigga ku daatay calankaas intuu tiri leegay marka waa maalin runtii qiimaha leh waana Soomaalidu waana la yiraahdo hadii goraala xornimadu waxay ku baxdaa dhiigga geesiga marka taas weyn naga mudan yahay calankeenu waa waxa yani laga sheekeyn karo uu ka badan yahay runtii waa waxa qof waliba uu isleeyahay gaaro dugso runtii Sakariya nin adiga gudoomiyaha Somaliland Rex Warbon maantana halkan marti ku ah waxa sida aynu ognahay xafladda 18 May siyaabo fara badan bay u dhacdaa dadka qaar waxay ku soo dhaweeyaan xafladda in loo habeenka loo heeso calanka dadka qaar waxay ku soo dhaweeyaan in ay yani u duceeyaan Somaliland dadka qaar waxay ku soo dhaweeyaan in ay yani ama mudaharaad sameeyaan runtii maxaa sababay in aanay jirin nidaam xafladda 18 May nidaamka loo xuso يعني إن يدتكو أي كوكا لفكر دوينيهن محاد ملاينسا horta bini aadan baynu nahay kelmad kale oo Soomaali iyana waxay tiraahdaa nabi Allah ninba afkii kugu amaan waxa weeyaan kulay fikirka habka wax loo abaabulayo amba habka loo dabaaldegayo waan ku kala duwanaan karaa anigu shakhsiyan waxaan ahay dadka taageersan in qaab kasta oo suurtagal oo loo dabaaldegi karo oo loo sameyn karo in loo qabto kaliya waxa inoo muhiim oo anigu aan leeyahay maanta maalinta 18 May inaynu ahaano dad mid ah oo hal qof isku ah oo tusaya caalamka iyo bulshada kaleba inaynu xabadnahay oo aan wax kasta oo markaa inoo yaala halkan intaynu dhigano ilaa maanta waa maalinteeni tan kale ee su'aasha hadaan dib ugu noqdo run ahaantii wax wal oo la sameynayo oo la qabanayo heshiis lagu ma wada noqdo fikirkuna si loo wada arko amba ha noqoto mid diiniyana ama mid ha noqoto maxay fikir ahaan lagu kala soo horjeedo laakiin ummad kasta dhaqan bay leedahay taariikh bay leedahay alxamdulillah rabbil dad islaam aynu nahay marka in aynu sameyno oo especially waliba gaar ahaan maanta dhulka aynu joognay qurbaha ah ubadkeena iyo dumarkeena iyo caruurteena haddaana isku iman dhaqankoodii iyo dareenkoodii iyagoo wada jir aan isku iman waxa jira waxyaalo fara badan oo garab yaala oo inagoon ogeyn kana talin ay sameynayaan marka wixii inaga taariikhdeena ah amba dhaqan ha noqoto amba diin ha noqoto amba ha noqoto xusitaanka iyo baridda ummadeena waa ilmaha 15 jirka ah ee laga yaabo inuu meeshan u yimi xafladda amba hubal baa yimi
si indirectia ayaa loogu sheegayaa ujeedada meesha loo yimi marka aan waxa taa laftigeeda in maxay la dhayalsado ma aha marka waa la kala duwanaan karaan fikirradu laakiin muhiimadu waa isku mid maxamuud adiga laftigaagu runtii wax badan baad xafladaha Somaliland aad ka soo qayb gashay in laftigeenu idinka in laftigeenu regis kale oo isaguna reer Somaliland ah oo isaguna meesha jirabaatihiin in markaad eegto in runtii dadku ninbas yani in ay dadka aydun mid inteedu ka wada dhigtaan ay ama mudaharaad ama xaflad xoog leh ay sameeyaan yani maxay idinka hortaagan horta cabdikariin waad mahadsan tahay waa su-aal aada u fiican runtii Sakariya wuu taabtay runtii dadku way kala fakar doonan karaan laakiin marka ay timaado wax la wada leeyahay runtii wuxuu sheegay uu yidhi waa in wixii wale meesha jirayba la dhigaa halkaa wuu taabto halkaas mid loo noqdo male waxay ku kala duwan tahay cabdikariin oo horta muddaynu soo wadnay xafladaheennan Somaliland halkana muddaynu deganaynood waanu inta badan joognay laakiin waxaad moodaa dadku inaanu ku kala duwanaa inaanu dadku ku kala fogeyn hal xafladeeyo laakiin sidii meel qura la isugu iman lahaa ayaad moodaa inay waxoogaa yara filiqsan tahay laakiin waqtigan xaadirka hadda waxaa jira anigu aad baan isku taxalijiyay runtii waxaa la kulmay dhalinyaro aad u fara badan oo yaryar oo berigii waddanka aynu halkan joognay oo halkan ku koray imika kamid ah gudiyadii iyo jaaliyadihii wax walba soo galay marka dhalinyaradaas runtii aad bay isugu xidhan yihiin marka waa wax aad runtii lagu farxaa marka waxaanu leenahay in dadkaygii waaweynaaye meesha joogay baad moodaa inay waxoogaa yar daaleen maskaxda ka yar daaleen laakiin dhalinyarada runtii markaan anigu imika aad ugu degay aad baan ugu farxay runtii waana wax lagu farxo waxaanaan leeyahay ninka la yidhaahdo Sakariya runtii fakarku wuxuu ka imanayaa markaynu inagu isku dayno inaynu inagu teena dhiganay inaynu yararka jiidno waanu yararka meel isugu keenno dadkana aynu reer Somaliland aynu tusno inaan wax aynu ku kala duwanahay aanu jirin ee aynu isku meel wax wada wadno haddaynu usoo noqono tan qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland dadka qurba joogo runtii waxay haystaan fursad meelihii hadday tahay United Nationkii meelihii go-aanka adduunka laga gaarayay hadday tahay European Unionkii waxaa jira fikrado fara badan oo dad badan ay isweydiineen oo ay leeyihiin maalintan 18 May waxay ku fiican tahay in meelaha yani dadka de go-aanka gaaraya la tuso inay Somaliland meel isugu yimaadaan iska xafladeeyaan inay fursad kale ay uga faa'iideystaan sida mudaharaad oo kale fikirkaasi imika aad buu soo xoogaysanaya Sakariya idinka xaqiina ilaa inteebeedu fikirka noocaas aynu rabtaan inaad ka shaqeysaan run ahaantii waa qodobka ugu muhiimsan in halkan ku wada joogno maanta aniga saaxiibkay Maxamuud oo aan ku joogno maahano dalad baan ahay amba dalad kalaan nahay amba jaaliyad baan nahay anagoo community Somaliland oo isku mid ah in aanu samayno maaha cidda kuma mudaharaadayno horta kelmadda mudaharaad meesha ma jirto laakiin tusid in aanu tusno oon u soo bandhigno sida aad hadalka u sheegtay xafladu inta badan la samaysanaya waxay ku kooban yihiin Somalilander iyo walaalahayna Soomaaliya oo nagala soo qayb gala amba markaa shakhsi aan xag ka soo casuno baarlamaanka amba wasiir laakiin taa aanu doonaa waxaan bulshada aan la noolahay Yurub guud ahaan iyo America meel ka soo joogno waliba gaar ahaan inagu dan rees u dhanahay inaan u soo bandhigno oon tusno oo hadday ugu yar tahay magaca Somaliland ay maqlaan shacbiga dalkan aan la deganahay horta ujeedada ugu weyn waa taa aniga Maxamuud maanta aan halkan u fadhinaa taasoo aan u dirayno baaq qof kasta oo reer Somaliland ah oo waqti haya in uu nagala qayb qaato isku soo baxa oo Maxamuud baa kulley waqtiga sheegi doona iyo waqtiga ay dhici doonto si wada jir oo aan u dhanahay aan u wada doono oo isku wada barbar taaganahay taas oo ujeedadeedu ay tahay oo ay tahay inta ugu yar ee dadkeena Somaliland sheeganaya ee qurbaha jooga maanta aynu ku qaban karo amba ku caawin karo qadiyadeena oo qof kasta oo Somaliland maanta wuxuu jecel yahay wanaaga dalkiisa jiritaanka dalkiisa uu ku kibirsan yahay qof kasta marka inta inaan lagala baqaylin oo meel aynu joogno baan isku nimaadno oo waqtiga walaalkeen Maxamuud inoo sheegay aan isku wada nimaadno inagoo mid ah oo u soo bandhigno dawladda iyo shacbigaba waa taa horta ujeedadeedu
maxamuud halkaa maxaad ku darsanaysaa halkaa waxaan ku darayaa sidii uu sheegay Sakariya horta hadalkii uu dhameeyo Sakariya horta hadalka dulucdiisa oo dhan taabtay horta waa runtii cid ku mudaaharaad mayno laakiin waxaanu sameynaynaa isu soo bax la yidhaahdo taageero waa isu soo bax la yidhaahdo taageero oo aynu ku taageerayno dalkeenna inaanu tusno meel kastoo aan adduunyada daafiyada ka joognaba reer Somaliland wixii reer Somaliland ay ka joogaan inay meesha ay joogaan tusaan inay dadkoodii reer Somaliland dalkoodii Somaliland inay dawladdan la joogaan ama ummadan la nool yihiin aanay ilaawin ee mar walba xusuusiyaan kelmadda waxa yiri Sakariya yiri uu dhameeyay waxa weeyaan isu soo baxan aanu iminka aanu halkan aanu ka ilaaminayno aan ugu talagalay inaan ku taageerno dalkeena bishan ama maalinta xornimada aanu ku ahaato ama maalin kale ahaatee aanu siiba ku taageerno dalkeena maalin maalmaha kamida oo kamida bishan aanu ku jirno siiba waqtiyada xafladdu ay dhowdahay maaha isuudhan oo qura runtii waa caalamka oo dhan waliba siiba Yurub oo dhan taas kaliya ku yar noqon doono la xiriiray waxa jira runtii in aynu inana ka qayb qaadano tusno inaynu nahay ummad jirta oo banaanbax lagu muujiyo oo aynu ku muujino taageeradeena isu soo bax aynu ku taageerayno oo aynu tusayno dawladda aynu suudan ee aynu maanta inagu halkan aynu ku deganahay waxaan ugu talagalnay runtii Sakariya iyo guddigiisu way dalbaan annaguna halkan waanu ka dalabnay inkastoo aad moodeen waxoogaa aanan xidhiidhin oo qoloba dhinac ka hordisay waa dadaal haddana waa dadaal oo muxuma markii labadiiba ay noo soo baxeen waxaan isku raacnay inaanu ka dhigno maalinta 18 May ay ku beegan tahay oo ah maalin Arbaca ah in 12 duhurnimo la isugu yimaado dadka Sweden jooga dadka jooga siiba Sweden wixii ka yimaada garan maayaan Stockholm jooga inay la soo xiriiraan dadka qaban qaabinaya mudaharaadka oo dhalinyaro aad u fara badan waxa la isugu iman doonaa marka hore waxaan ku talagalay in laga dhaqaaqo ilaa Maritoorida halka aan soo socono meel dheer laga soo bilaabo halkii mudaharaadada laga soo bilaabi jiray laakiin waa ogtihiin Madaliska waxa ka socday marka dhibaatooyin aad u fara badan oo Madaliska dimuqraadiyadda oo cirka saaran bay cirka kala soo degeen halkii dhulka kama bilaabin marka inagu hoos baynu ka bilownay inagu marka waxaynu weynay meel aynu ka soo dhaqaaqno runtii oo dawladahan kale ayaa focus kumka aad ugu jeeda marka inaga waxa leena siiyay maalinta 18 Lila Toriet inaynu ka dhaqaaqnay Lila Toriet waa la wada garanayaa waa areada u dhow King Street ku dhanagteeda weeyaan waa ka soo horjeeda wasaaradda arrimaha dibadda oo halka ka soo horjeeda iyo aqalka obraha ee intaas u dhowday Lila Torietku marka Lila Toriyetka markaynu ka dhaqaaqno way naga soo horjeeda halkii aynu waraaqa geenin inaynu soo baxay marka waxaan isku raacnay Sakariya inaynu halkaas ugu wada nimaadno maalintii kale iyagu ay soo qabteen sida aan ku baajino si aynu u noqono xoog isku wada xidhan waxaan sababta uga dhignay maalinta Arbacada waxaan maalinta Jimcaha maadaama ay xaflada jiraan yaani isasiir riixin inaanu maalinta gaar ka dhigno si aynu xoog badan waana maalinta ay xafladuba ku beegnay waana maalintii caalamka ku beegnay ee lagu dhawaaqay caalamkeena dib loo soo noqonay waana maalin ku munaasab runtii marka aad iyo aad baan Sakariya arinta uga munaaqashoonay oo aan isla garanay runtii waxaanay muujinaysaa inaan ku kala tagsaneen Somaliland iyo aragtiyaha Somaliland iyo waxqabadka Somaliland midna laakiin labada qof aragtidooda way ku kala tagi karaan laakiin wax si weyn ma aha haddana waxaas marka waxaan leeyahay dadka reer Somaliland soo Sakariya sheegay waxaan idinka codsanaynaa mar labaad inaad taariikh waqtiga timeka iyo meesha intaba aad ka soo qayb galaan oo ilaalisaan wixii inta dhaafsiisan dhalinyarada reer Somaliland ilaa Rinkibi iyo Tenista Shista Saudarka xaggan Sharon Holman intaaba dhalinyaro ku diyaara idin ka soo qaban qaabinaysa hadii aan leeyahay Sakariya waa markii ugu horeysay 20 sanadood ay bilaabatay inay Somaliland ay shacabkeedu ay tagaan meelaha dadka European go'aamada laga gaarayo xogaa ma moodaa inay Somaliland qaan gaadhay hadda oo 20 sano ay nagu qaadatay in la ogaado xafladan la boodbooday inay ka muhiimsan tahay in dadka cad loo tago oo la fahansiiyo walow ay aad u yaqaanaan dadka Europeanku horta waxaan oran karaa oo ah waxa inagu had gaar ahaan hadii rees wiilanahay ku faano Somaliland boqolkiiba 70 gobol kasta waa laga yaqaanaa Somaliland waxay yihiin oo xitaa magaalada aan deganay Uppsala
kamuunka iyo dowladda magaca Somaliland way yaqaan waxaan markaa waxa inagu kaga horeyno qurba joogta kala runtii oo in barashada Somaliland maaha wax imika barasho u baahan runtii kaliya wax qabadkeena iyo heerkeenu gaadhnay iyo waxaanu samaysanay inagoon cidna gacan hoos haynin nabadda iyo kala dambeynta iyo istixgelinta inaga dhexdeena way wanaqana Soomaalida guud ahaan dhaqanayaan waxweyn beel reer inaynu waxa intaynu ka gudubnay horumar iyo nabad iyo iskaashi marayno oo iyadoon cidna inoo intiba maanta gaadhnay iyo isku dulqaadasho iyo walaalow maxaa tabanaysaa ay tahay maanta heerka ku gaadhnay run ahaantii waxaan malaawadiina ilowday 2007kii ayaan horta mid la mid ah sameynay oo ahayd isku soo bax laakiin kan wuxuu kaga duwanaan doonaa laba waxba iskalo mardeer waa labaatan jirsatay marna maanta waxaanu marnaa heer aynu ku faani karro oo oran karro cid ma ku mudaharaadayna isku manaan soo bixinay warbal arka waxa aanu qabsanay warbal arka anaga oo meel yar oo dhibaataysan oo gees kasta ka gubanaysa taagan inaanu suurto gelino 5 doorasho inaanu 20 sano gudahood madaxweynihii afraad marayno waxyaala aan ka dhicin Europe tan aynu degannahay run ahaantii waa waxa shacabka carabtu ay maanta tooshku waxa la isku laynayo ee la isku carabtu maanta isku haystaan inaga doorashadeena ugu dambeysay ay ka dhacday sida si aan la arago madaxweynihii laga badiyay iyo kii bilis gacan sano isku hambaliyeen oo waxaan doonaa umada adduunka inay aragto laakiin ta kale aan muhiimadu ay tahay doonaa maanta sida Maxamuud sheegay dad waaweyn baan nahay dalka dad ku soo koray baan nahay laakiin caruurteena iyo ubadkeena iyo dhalinyarta Maxamuud dhowr goor ka dhawaajiyay inaan uga tagno waxoogaa xasuusina si ay hawsha iyaga oo la wareegaan horta waa taatay kaga duwan tahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa oo fariin wada farayna aniga Maxamuudba war nin walba halka aad joogto maalinta shaqadeeda waan ka fasax baan ka qaadanaa waxaad fasax u qaadato iyo waxaad waqti geliso iyo waxaad maxay aad tiraahdo waxaan mudnaanta siinaya waxaan filayaa nin kasta oo isweydiyo amba gabadh kasta isweydiyo miyaanay u qalmin inaad maalinta arbacada 4 saacadood kombileedig soo qaadato shaqada oo soo fariisato si aad dalkaaga oo intaan ogahay u soo dhimatay oo intaan ogahay ku soo dhibaatootay inta yar aad u qaban kartaa waa 3 saacadood oo siiso marka waxaad ku boorinaa kaalaya oo nagala qayb qaata dadka runtii gudaha naga daawanaya runtii wadankii maanta jooga qolada qurbaha yani Maxamuud maxaad u sheegaysaa maadaama dadkii rajay ku nool yihiin dadka qurbahana runtii haday dhaqaale tahay way ka qayb qaataan dhinaca qadiyada maxaa dadweynahayna daawanaya gudihii jooga uga waramaysaa dhinaca gudaha runtii horta marka ugu horeysa waxaan horta dhammaan reer Somaliland waxaan soo jeedinayaa horta hambalyo maalinteena xornimada ku baagan guda iyo dibadba meel ay joogaanba yariye waayeel waxaan leeyahay ilaahay ha isku kansimo oo ilaahay ha naga dhigo kuwa sanadkiisa ku ciida caalankeena barwaaqadiisa inta haddaan ka soo gudbo runtii waxay aan runtii ku taageeri lahayn oo dhalaha boorto Sakariya saaxiibkay Sakariya Xasan Caysba horta soo dhameeyay laakiin ilkadeeda waan ka daba tuurayaa waxaan leeyahay dadka gudaha jooga ee reer Somaliland waxa idinku qabsateen dadka malaha ma aragtaan wax weyn ba adduunyadu wax weyn bay u aragtaa waana wax weyn annaga halkan joognana waxaan u aragnaa inay wax weyn tahay waayo markaan ka soo qaado qura sida ay u codeeyeen nabadgelyada ay ku codeyseen iyo sidii xilka loola kala wareegay aad goobjooga u haydeen runtii nin nasiib lahum ba halka ka qayb qaata waxa idinku heshoon annaga naga maqan lahayn laakiin waanu idinku mahad celinaynaa waanaanu idinku ogsoonahay waxaanu leenahay waxa ugu yar ee aad isleedeen waxa lama qaban waxa ugu yar waa inta waana waxa ugu qiimaha badan adduunyada qof intuu codkiisa dhiibtay halku dooniyo ku dhiibiyeen riixay dabeedna ka soo baxay dabeedna halku dooniyo wixii dabeedna go'aan ku soo baxayna qaatay waa wax wanaagsan waxaan leeyahay halka ka sii wada adduunyada wax weeyaan dimuqraadiyad la sheega waa taa laakiin ma dimuqraadiyadu tan carabtu hadda ay isku dilayso maaha وطن إنه بلونه ويان وحن لا هالك كسي وضع تضمنا كسي وناتي هذا على إله. runtii dadka guduhu waa dadka dhaliyay maanta inaan halkan idinku wareysto waxaan loo dabaaldegayana dadka xafiday ee u dhabar adeegay ee u samray dareen noocee bay ku sameynaysaa dadkii ka qayb qaatay doorashooyinka dadkii wadankan jooga ciidamada qaranka bulshadii
dadkan ilaalinaya waxaan aynu leenahay. run ahaantii dalmaro markaad su-aasha ay weydiinayso waxaa aan arkayaa hooyooyin fara badan oo caruurtoodii ka soo baxay oo kuyuu ku jiray si ay codkooda u dhibtaan ilaa subaxii shantii salaadii subax markay soo tukadeen ilaa 6dii galabnimo cadceedda ugu dhacday doonayeen inay codkooda dhibtaan. dadkaasoo jubga ay ku jireen kanaynu ku jirra aanu ahayn ee cadceeddoo plus 40 ay kortooda taagneyd roobka ku da-ayay haysanin markaa quraac iyo qada la siinayay u soomanaya maan ku odhan karaa 12 saacadood. kuwaasaan xasuusanayaa. waxaan xasuusanayaa askariga wax ka yar 300 oo kron bishii qaadanayay ee qorigu degta u saaraa ee ilaalinayay inay u dhacdo doorashadaasi si wanaagsan, taasoo cadowga markaasi doonayay inaynu dhicisowdo doorashadaasi uu aada u fara badnaa oon u baahnayn in dhitaaliyaad ka gallo. waxaan xasuusanayaa rabitaankii ummadda dhammaantood ay wada lahaayeen maalintaasi ayaan xasuusan karaa. marka maaha wax aan odhan karo wax taariikh buug dahaba inta lagu qoro meel lagu hayo. kolley waxaan u daynayaa qolooyinkiinan mediaha inaad ka samaysaan dokumentaaro aada u soo bandhigtaan ummadda. markaa shacabka yacni qurba jooga maxaa la gudboon? meeshii dad bay kaga yimaadeen, dhaqaale way u diraan, waa wada European. waxaa la helayaa 50,000 oo qof oo reer Somaliland passport European haysta oo ku garaaci kara oo midboor yar oo yacni nationality wadankan haysta oo u garaaci kara miiska odhan kara waa in la caawiya imika mashaariicda oo kale. ma jirtaa markaa in dib loogu noqdo, dib qurba joog intuu isugu noqdo uu eego fursadu haysto? ilaa waa ambassador wadankana dhalashu ku leeyahay, wax weyn uu bedeli karaa. in dib loogu noqdo si strategical ah looga faa'iideysto awoodda qurba jooga. waxaan odhan karaa maxamuud akeer boobe arrinka aad ka dhawaajinayso horta walaalka maxamuud oo kale waxay ahayn qolooyinkii soo bilaabay why not Somaliland haddaynu dib ugu noqono hay-adahan caawimooyinka bixiya oo run ahaantii aad moodaysa inaan banaanka ka joogno markii hore oo markii waqtigii mas-uuliyadda uu hayay ay bilaabeenba oo Somaliland waxeeda in maxay wax loo qabto oo uma baahnin anagu baanadii inaad wax noo qabataan oo dalkayga lacag gelisa, laakiin waxaan u baahnayd support us, nacaawiya dimuqraadiyadeeda nagu caawiya. marka wakiilka ka mid ah mudan Idris oo mas-uuliyadda wadanka jooga oo dhan ayaa ka mid ah maxay in qadiyadda Somaliland ay ka hadlaan. Yurubta inteeda kalena waa laga hadlay. wax maanta waxaanu arkaynaa wasiiro safaarado dalkeenii tegaya maalmaha qaarkoodna lagama sheekeynayn oo lama hadal haynin. maanta waxaan maqlaynay wasiirkeena wuxuu ahaa banflaya wasiirka arrimaha gudaha ay Somaliland baa ka hadlay maalin dhowto caawimada USAID oo to Somaliland loogu caawinayo. laakiin waxa weyn maynaan gaarin wali inagu haddaynu qurba joognahay heerka ay gaadhay hooyadii 6da subaxnimo soo kacday ee 6dii galabnimo ka hoyatay iyadoo bilaa qada ah, iyadoo bilaa quraaca, roobkuna korka kaga daayay, cadceeduna 40 ahayd. maynaan gaarin. marka waxaan leeyahay sheemanos aan unan xishoono waa inaan ummadeeda maxay shacbigeega waxay qabsadeen ku taageero, waqti yar ku taageero oo qadiyadeeda wax badan waan qaban karaa haddii aynu run ahaantii iskaashano. marka waa qayb ka mid ah banaanbaxo islaanta hadiyadeedii iyo abaalgudkeedii. runtii Sakariya soo dhameeyay oo wax weeyaan hadalku waxba hadhay lama yiraahdo. markii xubintii hadalka uu ku dhuftay wax weeyaan yani wuxuu soo qaaday waxyaalo aad u fara badan oo kugu reebi kara xasuus aan marnaba madaxaaga iyo qalbigaaga ka gooy kan. waana runtii wax si aan u leenahay haddaan qurba joognahay wax badan baynu inaga habsaamay, wax aad u badan baynu inaga habsaamay. calaalaqan waxaanu samayn karnaa wadankeena haddii aynu aragneen caawimo aan ku filaan dhakhaatiirtii iyo iskuullada oo kale. intii waxaanu dibadaha ku joognaa 1 million over 1 million baynu ku joognaa reer Somaliland. bal ka waran haddii qof kasta oo Somaliland oo 18 gaadho dibadaha ku nool $1 bixiyo bishii $1 million $1 waxaanu samayn karnaa maalin kasta dhakhtar baa maalin kasta gobol kasta dhakhtar u dhisi karnaa. waa waxyaalaha ninka doonayna inaan haddii aan la dhaaf Sakariya ka wada hadallo. waa waxyaalaha doonayna dadka Somaliland ka inaan dareensiino waa 6 kron a matter of 6 crowns a month
ayaanu doonaynaa. runtii intii waraysigan aan waraysanayay mar keliya maydin soo hadal qaadin aqoonsi in loo raadiyo somalilan. iminka waxaad moodaa somalilandarku in ay fahmeen aqoonsigu sidii ilaahay ha u naxariistay marxuum ibraahim megaag uu sheegay ee uu yihi aqoonsiga annagaas u hayna. iminka in ay taa ay wada fahmeen oo aqoonsi ka maqnay aanu jirin hadday dalkooda horumariyaan in uu imanayo aqoonsiguna aanu ka maqnayn. taasi kariim ma odhan karnaa? ها waxaan ka bilaabi karaa cabdikariim waa magacaaga dima weydiin kartid cid kale ma orka jiray igu yeedha cabdikariim haddana aad isugu yeedhin waxaan adduunyadu hay aqoonsato adu is aqoonso ayaa ka horeysa takaliye ee aan doonayna ee aan leenahay la isku aqoonsadana waa kelmadda ugu yar inta badan waxaa laga yaabaa boqolkiiba 80 oo kale haddii lagu yidhaahdo xageed ka timi suulisku yidhahdo xageed ka timi Somaliland baan ka imi waxa uu aqoonsi kaaga dhiman ma jiro waxa aqoonsigu waxa ka yimaadaa cad inaga halkeena joogna dalkeenu aqoonsi maanta waxyaalaha xiriirka guud booye waxaan aqoonsi maanta oo inoo hayaa oo inooga baahanahay ma jiro adduunyada iyaga inoo baahan maanta inay aqoonsadaan sidii ay noogu iman lahaayeen ayaa la isku hayaa laakiin inaga ayaa is aqoonsanay waana qodobkaad ka dhawaajisay aqoonsigu bulshadu ka yimaadaa aqoonsigu wuxuu ku jira qurba jooggeenu waxaan isku yeedhno ma cabdikariin oo kugu yeedhaa se aadan oo kugu yeedhaa waana tala cabdikariin baa la yiraahdaa marka Soomaaliland wasla maxamed halka wax ma ku darsanaysaa runtii in dhinaca mashaariicda iyo wadankii dadku fahmeen maanta runtii wax weeyaan haddii aan anigu soo noqdo horta Yurub meel walba mashaariic waa laga qaadaa laakiin anigu isuulan baynu deganahay runtii waxaan qabaa waxaan leeyahay aad iyo aad ama askariyaha ama qoliyo ku horeeyaha ama furina kalaba ha ahaadaan aad iyo aad baa runtii loo dadaalay waxbaa la qabtay laakiin marba la soo gaaraa marba wax la soo gaaraa meel marka maanta wax la soo gaaray meeshii aynu waxaynu inagu doonayno sidaynu doonayno inaynu wax u qabanno aynu ka wada hadli lahayn aynu iska kaashan lahayn ayaa laga yaabaa inaynu soo gaarnay maanta waxaynu maanta soo gaarnay in sida aad u sheegtay sakariyan oo sheegay aad u sheegtay in aynu ogaanay inaynu inagu is aqoonsano in wadankeena aqoonsiguna wax kale ma aha inaynu is aqoonsanahay waa inaynu wadankeena dhisnaa marka saacad walba kusoo imanaysa kusoo cararaysa aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sakariye iyo maxamuud oo barnaamijkan nagala qayb qaatay waxaad kusoo gabagabaynaysaan koleyba dardaarankuna uu iska jiraa oo in mudaharaadka iyo xafladaha laga soo qayb qaato in miyaad wax kusoo gabagabaynaysaan ay jiraan waxaan kusoo gabagabeynaya horta oran lahaa laba arrimood baan kusoo gabagabeyn lahaa horta waxaan u hambalyeynaa cid kasta oo wada qabaqaabada xafladaha dalka guud ahaan ka dhici doono gobol kasta waxaan filayaa in laga wado waxaan ku hambalyeynayaa jaaliyadda Stockholm iyo jaaliyadda maxay dalada Swedish Somaliland maxamuud halkan uga fadhiyo wakiilka uga yahay hawsha ay wadaan waana ku taageersanahay waxaan leenahay wax ina wada mideynaya haddii qofkeen wax qabto kii kalena uu la qabtay waxaan ku hambaleynayaa jaaliyadaha gobolada ka dhacay sida Jönköping iyo Göteborg way badan yihiin waan ku hambalyeynaya waxay qabanayaan run ahaantii waana waxaynu ka wada simanahay waxaan doonayo kale inaan fursadda uga faa'iideysto kulley inaga oo mar dambe isku iman doona oo ka mid ah aqoonsiga inagu is aqoonsanayno in haddii ilaahay yidhaahdo bisha July 15keeda ilaa iyo 20keeda 5 cisho oo tartan amba ha noqoto kubad amba ha noqoto xarig jiidad amba ha noqoto waxyaalo kale oo isku imanno aanu ku qaban doono insha Allah martigu nahay jaalida Uppsala oo gobolada oo dhami ay isku iman doonaan taasoo kulley idikana kala soo xiriiri doono oo aanu doono wax Somaliland kooxeedina kulmaan oo haddii ay ilaahay yiraahdana sanadada dambana aanu ku soo casoomi doono wadamada kale ee Yurub aad baad mahadsan tahay maxamuud miyaad ku darasay runtii sakariya aad buu mahadsan yahay sakariya oo ah gudoomiyaha dalada guud ee Somaliland Export Bund Sweden waxaan runtii waxaan celinayaa sida wanaagsan ee aanu arrinkii aanu soo daadihiyay iyo hawlaha badan ee hadda ku jiraanba ee ay wadaan wixii ay qabtaan iyo waxaan qabanaa runtii waa wax isku mid ah waxa loo baahan yahay in wixii la mideeyo oo muruq ay yeeshaan runtii waana ka soo qayb gali doonaa cid walba oo sheegi doonaa
waxaan kaloo leeyahay dadka reer somaliland waxaan ka codsanayaa oo aan mar labaad xusuusinayaa in ay yimaadaan isu soo baxa aynu isu soo baxaynin ku taageerina dalkeenna maalinta arbacada ee bisha May 18 inay yimaadaan Lilatooriet oo aad timaadaan oo wax walaa waxaysan baa dhigtaan sidii uu sheegay Sakariye uu yiri maalinta waa inay hortaan dalkiina ayaan waxaan idin xusuusinayaa in maalintaas ay inoo tahay maalin muhiim ah waa mahadsantiin iyo xafladda kale ka dhacaysa husbi tref xafladda husbi tref oo iyaduna aan ugu talagalnay dumarka iyo caruurta oo dhici doonta maalin la qaban doono bilaaban doonta 3 galabnimo jimcaha bisha May 20keeda ilaa 9 habeenimo waxaan leenahay taana ku soo dhawaada iyo ta kale todobada bilaabmaysa ee hudheelkii biyaha ka bilaabmaysa aad baad u mahadsantihiin Maxamuud waxaan idinka mahad celinayaa barnaamijka nagala qayb qaadateen daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh waxaa ka noogu soo gabagaboobay barnaamijkeena khaaska ahaa in ugu talagalnay xafladaha 18 May oo runtii qalba jooga ay si weyn u abaabulayaan waxaan u nidalenahay sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh